aynu soo gashay inaan la kulano gudoomiyihii hore ee guddiga qoraalada Soomaaliya isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hore waxaan ka weydiiyey dareenkiisa maanta 40 guurada xuska qoraalka farta Soomaaliga isagoo arrintaas ka hadlaya aad iyo aad maartay ayaan ugu faraxsanahay munaasabada tan oo lagu xusahayo 40 guuradii rasmiyeynta qoraalka Soomaaliga waxa loo soo maray run ahaantii dadaal badan yani faca badan jiilal badan arrintan maartay ay ku mashquuleen afartanka sano hadda baa la xusahayaa laakiin waxa ka sii horeysay 40 sano oo kale ka sii horeysay oo qoraalkan maartay wax walba lagu tijaabiyey arbeed lagu tijaabiyey lagu qoro arbeed far Soomaali oo la hindisay oo far Soomaali la jiray oo waqtigii maartay sodomeeyadii iyo afartameeyadii iyo kontomeeyadii shaqeyn jirtay oo caam ahayd jiray farta far Soomaali la jiray dadna Soomaaliya u yaqiineen waxa kaloo jiray far arbeed oo nin sheekh ah leeyahay Ibrahim Haashi jiray amuud sababta in maartay uu raadin jiray in fartan uu qoro fartii Quraanka inuu qoro raadin jiray wax badan u dadaalay isagoo gacanta kula jira hawlahan geeriyooday Allah uu xariisto 17kii munaasabada tan annagu waxaan maartay runtii aad iyo aad ugu mahadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle oo maartay in Soomaalidana yani jabkii ku dhacay oo garab ka siiyo siday u qabsan lahaayeen afkii iyo hiddihii iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo baabi'i lahaana runtii maartay u gurmaday oo intaasoo dadaala u galay oo qadarin iyo maartay mudnaan aad iyo aad maartay khaasatan annaga dadka hadda Soomaaliga ku shaqeyn oo Soomaaliga maartay jecel inuu noqdo af rasmi ah oo xoog leh oo cilmi iyo muxuu ahaay suugaan iyo dhinac walba inuu ka xoogaysto dadka jecel aad bay dadka ugu shaqeynayaan shacbiga Soomaaliyeedna waa maartay waxa weeye adeeg aad iyo aad aan la hilmaami karin u qabtay dhinac walba munaasabada tan waxay kala muujinaysaa dadka Soomaalida ah in maanta wax midayn hayal ay jiraan oo ah afkaas iyo fartaas ay midayn hayaan qadarin maartay hor leh afkii inuu helayo maanta maartay afkan iyo fartan lagu dhaqmayo sida meelo badan ay uga hirgaleen oo dadku ay aaminsan yihiin waxay muujinaysaa in Soomaalidu maartay runtii maanta waxay ku midowsan tahay afka iyo farta ay tahay qadarinta u jeedaan maartay loo hayo arinta iyada annaga oo ka shaqeyn jiray Soomaaliga inuu noqdo af rasmi ah oo xidid leh oo awood leh oo afafka kale inuu la mid ahaado wadnay oo aaminsan in af loo bedeli karo Soomaaliga inuu san jirin waxaa yeelay sida la yiraahdo biyo sacbadaada ayaa lagaga dhargaabaa la yiri af kale oo maartay maanta inoo bedeli kara ma jiro waxa farxad weyn inoo maartay runtii dadka maanta halka isugu yimid oo siyaasiyiin leh oo aqoon-yahano leh oo khubaro leh oo haddii baad baahayo dad af Soomaaliga jecel ah in maartay laba kacleyn afkii in maartay maanta wixii ka bilowda afka yeelan doono aad iyo aad bay noo siinaysaa gubaabiyo heerarka uu soo maray fartaan la isugu yimid heerarka ay soo martay heerarka soo martay waxa weeye fartan marka ugu horeysa af Soomaali la qoro oo yani maartay la diiwaan geliyo waxa uu horeeyay nin Ingiriis ah 1814 waxa dhigay David Salt يعني السفر وكيمي دولكن إيست أفريقيا أيوه يعني وحنا نصلي في صوماليا waxa aadaha aan jirtay bariyahaas yani waxa laga hadlayaa laba qarni
كدوات والله ما قدوا يبعده لأن أفريقيا توانكي بيا سيدي توانكي أفريقيا توانكي بيا وحركة الصومال ده قبيا هي ده كان نور أو شيكين هي ده كان نور أفكار الله مركا أفكيبه مركا وحسيري كجوري أفكي بارتي قول وود بيسمع هذا يسميه أريا أو مارتي فضط أو أريا في صوماليا وورقة هي أريا في جريسة يسميه مركا تاسع وورت ووريس كدب dadkii muxuu ahaay markii arintaas ninkan uu sameeyay waxa lagu baraarugay afkan maartay Soomaalidu ay ku hadasho geesta Afrika laga hadlayo ayay ku baraarugeen marka waa isku xidhiidheen maartay dabadiin inay Faransiiska ku xidhiidheen waxaan ka hadlaynaa 1839 ka hadlaynaa waxa ku xigay niman Ingiriis ah oo king inay dhijiray niman maartay badan oo Talyaaniya niman maartay muxuu hayto Faransiis kale marka qarnigii 19aad aad iyo aad baa Soomaaliga loo qoray yani waxa laga joogaa haatan 130 sano 140 sano kadib markii la galay qarnigii hadda tagay yani maartay 20aad aad iyo aad baa daraasaad wax la daraasaad maartay Soomaaliya aad iyo aad baa maartay galeen badan baa laga sameeyay oo tiro badan kuwa badan oo maartay yani cilmi ahaan dhumucde iyo kuwa iska fudud way jireen marka intaas maartay dadka Faransiga ayaa waxaan sameeyay khaasatan qaamuus bay sameeyeen jireen nin walba qaamuus bay sameeyeen jireen ninkii dalka yimaadaba qaamuus buu isku dejin wax la yiraahdo Ingiriis Faransiis Jarmal Austrian hadii ay baahay Rush هذه ما هي آريش يعني قفكي ما دب ما نقارن صابته يدا لكن قفكي ما دب شو كان كلمة هذه جري كمية أمور هذه جري كلية رياض أروسلو أو بارتي ذلك يسوع يعني بار جرمال كار مارتي هذه بدنا قرن نجاس تحديثا تحبرتن كيس وحقال لنا قرن مارتي رواترات تحبرتن كيس وحصوب حيرة من هذه هو وين وصوماليا مارتي هذه بدنا waxa kamid ah Jaruli waxa kamid ah Moreno Talyaaniga si cilmiya runtii labadan qoray aan loo gaarin ayay gaarsiiyeen maartay Soomaaliga kadib maartay isku iyo todobadii meelaha soo bixi doona Andrzejewski sawira waxa uu ahaa professor jaamacadda London ayuu ahaa Soomaaliga ninkii nin Soomaali ku hadlo French ayaa anu sidaan qabo ayuu maartay si fiican u hadlahay laakiin ayuu ugu horeeyay ninkaas Andrzejewski baa dhihi jiray wuxuu geeriyooday 1993 buu geeriyooday laakiin weligii wuxuu ka shaqeyn jiray sida maartay loo weyneeyo Soomaaliga sida loo ballaasto sida loo cilmiyeeyo erayada phoneticada hadii baahayo erayada maartay qiyaastooda erayada maartay muxuu ahay sida loo garabaadka sida loo dejinayo waxyaabo badan oo cilmiya ayuu ninka ka tagay professor waxa dhihi jiray Andrzejewski dawladdii كويلاتن سنة دالك حكوميسي جمهورية ديمقراطية الصومالية اللي نجي جري أنا حقابك وضدي أي مرتي فرطة صومالية dadkii ugu horeeyay ama shakhsiyaadkii ugu horeeyay keenay farta iyo inta far la isu keenay dadkii ahaayeen bal maadaama ay ahayd guddiga guddoomiyaha qoraalada waxaan ku sheegayaa fartan maartay yani far Soomaaliyeed la qoro Usmaan Yuusuf keenay baawo wuxuu keenay fartaas 1920 far Soomaali baa dhigi jiray oo fartii leegada maartay ay hadda gareysay fartii leegada ay qaadatay oo ku darsatay yani miisaaqeeda ballankeeda iyo marka kadib waxaa dhashay Soomaali hal la qoro waxa la yiraahdaa naawatay aad bay u koray adigu buug baan ka qoray oo hadda aan wado baan ku siin doonaa markaan daabo hadda marka waxaa lagu bulaami jiray fartan Soomaaliga waa in la qoro waayaha Soomaaliga markii la yiraahdo Soomaaliga hal la qoro dad badan oo Soomaaliya waa diidanay waxay dhigeen Soomaaliya lama qori karo ma cilmiyaysan wuxuu ku dhisan yahay diyaaradu ku dhisan yahay daalik ku dhisan yahay abdul ku dhisan yahay Soomaaligu waa ballaaray marka lama qori karo afka laato
afafkeena khaasatan carbeedka aad maartay loogu dagaalamo marka waxa soo baxay loolankaas kuntumeeyadii waxa la dhihi karaa maalin walba kuntumeeyadii waxa lagu qori jiray yani waxaan sheegayaa inta u dhaxaysay 49 ilaa maartay 60 laga gaaro doodab hal la qoro yaan la qorin Soomaaliga hal markii dambe waxa la ogaa Soomaaliga inaan laga maarmay in la qoro ayaa timid taa markay timid waxa la yiri marka afka fartaan ku qoraa ma Isbaaniyaan ku qoraa waxaan ku qoraa maartay Arab baan ku qoraa Malatiin baan ku qoraa marka dagaal badan baa arday waxa la dhigi karaa nimanka bulaan bay ku jireen markii dawladda Soomaaliya ay dhalatay 60 guddi bay saartay koob iyo 60 keeba guddi la saaray sagaal nin ka kooban nimanka waxba way ku heshin waayeen yaa kamid ah nimankaas Muuse Gaal baa kamid ahaa Yaasiin Cusmaan Keendiid baa kamid ahaa Kadarahan waa kamid ahaa Mustafa Sheekh Xasan ayaa kamid ahaa geeriyooday Allah yarxamo dadkan ku sheegay dad hadda dad nool ma aha waxa kamid ahaa Cabdullaahi Insaani darkiis baa kamid ahaa waxa kamid ahaa dadka iyaga shirin jaamaca kamid ahaa waxba ku heshin waayeen waa 60kii iyo kowdii way markii sagaalka la qaatay marka arintaas waa laga bulaamay waa laga dooday meel baa loo dhaqaajin waay yaani dadkii loo xisaaray guddigii ayaa marka dhaxdood mar walba critics ku sameeynayo isdacweynayo oo arrin markii dambe xitaa maartay wajiyaal qabiil baa loo yeelay markii dambe marka markii si meel loo maartay loo weeciyo la waayay dawladdu waxay raadsatay khubara inay keensato oo UNESCO iyo gudoodu way ogyihiin haday yiraahdaan waxay ahaayeen Laatiinkay raacsanaayeen laakiin si aan maartay shacbigu dibadiiba u garanayeen Laatiinka yaani ay xoog u saareen laakiin tiin waa socweys waa lagu dhici waayay waxa jiri jiray Muqdisho maartay banaanbaxyo oo lagu diiday masaajidada waxa lagu akhrin jiray khudbado oo leeyahay la diin loo qaadan maayo ayadoo marka madax isku jiro ayuu ka cankay durbadiiba ka cankay markuu yani waxa jiray wax la yiraahdo maartay ballanqaad baa jiray uu sameeyay warqadiisii wuxuu ku daray inuu qorayo Soomaaliga iyo ku daray markii sida la leeyahay waa 69 71 marka anaguna aniga iyo guddi aniga ka ahay gudoomiye ayaa la magacaabay oo adigu 23 baan ahay laakiin markii dambe 22 ayaan guddi ku soo harnay waxyahooda waan hayaa markaa sidan ku siin doonaa waan wadnaa sawir baan ku wadnaa xitaa guddigaas yani dadkii is qabsan jiray markii nimankan kacaanka yimaadeen dadkii xiri jiray nimanka askar bay ahaayeen marka dadkii ruux walba waxaad meesha waxaad u baratay maqaayadaha inaad kaga dootid u baratay haddaad halka ka sheegtid waa lagu xirayaa lianna waxaa jiray sida keliya Soomaaliga lagu hirgelin karo fartan ay ku socon karto waxaya in loo qaado afti in baarlamaanku ku soo saaro sharci in muxuu ahayto xoog lagu bariyo marka nimankan maartay askarta markay yimaadeen runtii xoog bay ku mariyeen Soomaaliya waa la qorahaya guddi baa la sameynaya guddiga asaga uu maartay farsamadu gaaro iyo maartay fartu ayagu ma idin farta doorta guddiga Soomaaliya waxa la shaqeeyaa buug qora waxaad qortaan buugag iskoolaadka hoose waxaad qortaan qaamuus waxaad qortaan naxwo go'aanka farta maartay la qaadanayo anaga noo daayiraan waa far waxa weeye farka aanayda garigay marka anaga maartay ninkii watay kadare wuxuu watay fartiisa Yaasiin Cismaan iyo waxay wateen fartii Ismaaliyeed wateen Ibrahim Xaashi iyo gruubka Carabta waxay wateen fartii Carbeedka lagu qori lahaa bay wateen waxaasoo afsaar lagu qori lahaa bay wateen marka nimankaasoo markii isu imaanay Muuse Gaal Latiin Mustafa aan watay laakiin markii anaga nalaysay kulli maartay doodaas meeshaasay ku xirantay dooda way xirantay بس لو حنري هلا شقي وان شقي حتى ياسين عثمان كيردين قلت لنا
guddi hoosaad baan lahay layidhaahdo guddi hoosaad qaamuus ayaan ku wadi jiray xitaa yaasiin wuxuu ku shaqaynaya farlaatiin buu ku shaqaynaya wuxuu la shaqaynaya leanna aniga ay kadara ku jira annagu farta ninkii bartay laakiin wakhtigaas waxba kuma qori karin buug baa lagaa rabaa marka meesha dumadii waxaa qabsatay fartii laatiinkaa qabsatay oo lagu shaqeeyey okay fartan laatiinka yaa keenay oo macnaha higskeeda lahaa marka farta laatiinka arrinta cilmiga waa wax maartay waxaa la yidhaahdaa waa process maartay muxuu ahayto helan weyn wax helan weyn yani fartan laatiinka waxaa keenay markii hore waxaa watay yani nimankii farta qori jiray faranjigaa watay laakiin waxaa maartay heer wanaagsan gaarsiiyey abdiljawiski iyo shire jaama iyo muuse galal wuxuu wadan jiray far carbeed in maarata soomaali lagu qoro ayuu wadan jiray waa ka baxay kanuu soo galay marka middan yani culayska saaraa waxay ahayd shacbigaa diidanaa shacbigaa waxaa lagu yidhi farlaatiin wa farlaadiin marka sidaa awadeed shacbigaa diidanaa fartan haddii kale dadkii carbeedka watay bise yani watay baa arrimaha diibeed ku soo qalday arrinta ayaa shacbigu waxay ka dhaadhiciyeen arrintan inay tahay arrin maaragtay diinta maaragtay lagu khaldahay okay markii aan dhinaca kale uga gudubno marka hadda fartii waxay maraysaa heer 40 sano la adeegsado intii la adeegsanayay adigu ogaantaa caqabadaha soo wajahay caqabado badan baa farta soo wajahay marka fartan waxaa la rabay markii heerkan maaragtay laablaka ah laga gudbo heer cilmiya inay gaarto farta naxwaheedii la dejiyo isku raaco farta qoraalkeeda isku raaco ninka yani lahjadu rabaa ku hadlo laakiin farta qoraalka farta lagu shaqaynayo farta cilmiga ah lagu heshiisiya laakiin yani nasiib darro fartiiyo maaragtay heerkii la raba gaarin ayaa waxaa dhacay qaranjabkii baa dhacay akadeemiyadii lagu hiran jiray wasaaradihii dadaaladii iyo miisaaniyaddii qaamuus soomaaliga markii dambe la qori doono yaasiin ay qoreen dowladda aniga iyo yaasiin baa u tagay waxaan idhi waxaan kaa rabaa 50,000 oo doolar inaan siisid oo qaamuuskan 40 ku koobi ka dhigo wuuna siiyey markiiba dood la'aan buu nagu siiyey anugu sheekada waxaan ku wadaa halkan taariikhda ku wadaa maantana waa soo taaban doona marka wax allo wixii taageero loo hayay afka horumarintiisa dadkii iyo dunyadii loo hayayba meeshay ka baxeen marka taas markay dhacday waxaa dhacay afkii jaantar rogan baa ka dhacday qoraalku maaragtay nin walba soo rabo qoran hayaa lahjadihii baa soo baxay oo nin walba soo rabo yeelahayaa hadda afka la qorhayo maaragtay waxaan isku raacsan yahay malaha meeshii maaragtay laba laabi lahayd midda halka dhigahaya meeshii la rabay in hal laga dhigo laba laga dhigahaya waxyaaba aan maaragtay Soomaaliga maaragtay ku habbooneen badan baa ku jira naxwihii ma hagaagsana nin walba maaragtay wuxuu rabo qoray waxyaalo badan way jiraan laakiin wax isku raacsan yahay ma jiraan dowladda Soomaaliya kacanka ma jirtay wax naxwa oo ay ayagu dejisay oo buuq oo la qabo wax isku raacsan ma jiro waliga waqtigaas wax isku raacsan ma jiro anagu guddiganaga naxwa sameeyay fudud oo adigu aad ma dhihi kartid yani maartay naxwa wuxuu ahaa lagu jaangooyay naxwa talyaaniga oo khafiifa waliba bilow iyo ahaa laakiin naxwa hergel ma jiro waqtigaas annagana naxwa inaan diraano waa sida waa ka cabsanay leena naxwaha maarta u baahan yahay dood badan iyo cilmiyeyn badan buu u baahan yahay marka laakiin waxay ku socdeen Soomaaliya waxay ku socotay in afka maarta meel walba loogu yimaado culimo yimaadaan Soomaali iyo maartay isku kaashado culimada dunida marka la dejiyo nidaam isku raacsan yahay dowladuna maarta iyo bulsha yaa okay wax macnaha hadda oo lagu tala jiro ma jirtaa maadaama adiga aad tahay dadkii ugu horeeyay asaasiyaashooda qayb ka mid ah tahay wax lagu tala jiro ma jirtaa in fartan la caalamiyeeyo oo macnaha xuruufaha laatiinka ee la adeegsanayo kombiyuutarada ku jira xuruufaha dunida kala duwan qodobada in
lagu sameeyo ma jirta arrimo noocaas oo kale waa jirtaa meeshan waxaan ku sheegahayaa yani haddii dhinac laga fiirsho meeshii laga midayn lahaa waxaan kadaato oo akadeemiyadii iyo wixii meesha ay ka baxday dhowr nin baa hadda madaxweynayaasha way ka hadleen akadeemiyin loo baahan annaga maanta yani dadaalkii berigii aan samaynay mid ka badan baa la sameeyey 20kan sano laakiin wax lagu heshiisa ma jiraan intaasoo maaragtay barnaamijyo oo grammar baa jira naxwaa jira intaasoo naxwaa ina tobaneeyo jaad baa jira tobaneeda jaad waxaa loo baahan yahay in la bideeyo oo laga soo saaro maaragtay hal nooc laga soo saaro oo taas waxay u baahan tahay yani dad badan oo Soomaaliya culamaa inay u fariistaan oo go'aamiye kana rasmi okay haddii aan ka gudubno marka hadda waad aragtaa 40 sano ayuu jiray afkan mis leedahay laha heerkii hore asagu soo maray inta uu mari doono marka la soo egto waa af dhimanaya mis leedahay way afkan dhiman maayo anigu waxaan qoraal ahaan afkan ma dhimanayo waxaaba ku daliila tiirarkii afkan uu ku noolaan lahaaba taagaya cilmiyeyntaas afkan hadda Soomaalidu isku raacsan tahay inuu maaragtay dhaqan galo u shaqeeyo wax lagu barto waad arkaysa yani meelaha qaarkood waxbaaba lagu bartaa jaamacada lagu bartaa laakiin wax maaragtay la fududeeyey uusan noqonin la biyey af maaragtay cilmiyeysan oo heerkii la rabay waa inuu gaaro waana ku socdaa anigu waxaan marka aad ugu rajo weynahay afkan inuu sii korahayo sii kaamilmaayo ma aha af maaragtay sii mushaahiyo sii dhimanahay ma wax looga weyn okay waxa jiro lahjado kale oo macnaha من adeegsanin macnaha qoraal ahaan oo haddana dastuuradii ku meel gaarada ah la sheegi jiray sida luqadda may macnaha arrinkaas laga yaabaa in caqabad ay ku keento macnaha haddii la yiraahdo isagana waxa dadka qaar waxay leeyihiin fahamkii duruustii iyo waxyaabihii lagu bixin jiray lahjadan kale macnaha si fiican uma dhergi jirin waa buuxayshi maxamed Ismaan baa leeyahay maxamed waxaan ku sheegayaa lahjado way jiraan annaga guddiganagii haddaan ku sheego waxaan ku talinay markii qaamuus la dhigaayo in qaamuuska lahjadaha af Soomaaliga in la tixgeliyo qodantooyo ayay lahjadahaas wataan lahjadahaas in la tixgeliyo laakiin ma suurtoobayso inaan rasmi ka dhigno laba lahjado isbeer cararahay ma suurtoobayso lahjad yani annaga afkan lagu shaqeeyey oo yani hirgalay intaa la cilmiyeeyey oo 40 sano laga shaqeynayay ayaa af rasmi noo ah lahjad haddii maaragtay dhaqankeeda iyo miraha afkeeda iyo waxa la ururinhayo waa dadaal cilmiyeed oo af Soomaaliga kaabaya ma aha inuu ka goynayo marka anagu waxaan qabaa Soomaaligu inuusan maaragtay yani af kale oo barbar taagan insan in arrinta ayada siyaasad tahay laakiin af Soomaali waa mid lahjadahuna waa jiraan lahjado waxa jira koonfurta laga hadlo maay baa jirta afbara waa jira afjiida jira waxaa jira maaragtay garraa jira haddii u noqotid af Soomaaliga maaragtay waa mideynaya kulli erayada runta waa afkaan ku wada jira marka hadda qaamuusyo xitaa la sameynhayaa oo lahjadaas iyo luqada saldhigga SS baa la yidhahdaa standard Soomaali SS baa la yidhahdaa taariikhdu aan ku hadalno waxaad gartay ma marka arrintaas af Soomaaliga yani lahjadahaas waxay u yihiin hodantooyo laakiin waa marka af Soomaali ka mid yihiin laakiin hadday ka soo horjeesanayaan waxay u yihiin lugooy sababtu in goynay maxay tahay miitaal yar oo sheegaysa goynaa uga faa'iideystaan goynayaan waxa weeye dad baa waxay yiraahdeen markii duubkanaga aan qoraynay Soomaaliga lahjadihii kale ayaan xaqiray arrinta ayada run ma annagu lahjadahaas ma aanan xaqiri karin lahjadahaas go'aanka lagu gaaray in la qoro hadda afkaan ku hadlayno annaga ma go'aamin waxaa go'aamiyey booliska gacanka annagu laakiin waxaan idhi 40 ayaan ku shaqaynay hawshaan qabanayna waa tan idin oran mayno qaata lahjadaas
laakiin marka waxaa hirgalay afkan hadda aan ku hadlayna hirgalay maxaa yeelay wuxuu ahaa af cilmiyeysan oo afkii hadda aan kuu sheegay 200 oo sano soconayay buu ahaa diyaaleeto aan maaragtay la hormarinin oo weli maaragtay muxuu ahayto cilmi ahaan loo baarin oo heer la gaarsiinin in la yidhaahdo maaragtay hala qaato ma suurtoobi marka arrimahan dadka hadda dhahaya maaragtay waxaa la rabaa si hadduu af soomaaliga ku kooban yahay maay keliya maaha waa ka badan yahay laakiin arrintaas yani waa arrin anigu sidaan qabo iyadoon maaragtay cidna hadda maaragtay lagu xaqiraynin waa arrin yani mabda ah afmaay waa jiraa laakiin maay af soomaaligu ka mid yahay maay yani ma aha soomaali weeye ma aha cid kale ma aha marka yani waxyaaba badan oo maaragtay iska daayey oo loo dulqaatay oo siyaas ahaan yaan maaragtay muxuu ahayto wax la tabanin loo yidhi baa jirta laakiin af soomaali waa mid ugu dambeyn waxaad soo jeedinaysaa shacabka soomaaliyeed ee dhegaysanaya ama daawanaya ama akhrisanaya fikirkaaga mustaqbalka waxaad u soo jeedinaysaa ilan soomaaliya waxaa ka jiro lahjado fara badan مثال كوفرت مركز يراهدو حوالي مايغاس جيرو دبر جيرو جيدا جيرتو تونيا جيرتو غرا جيرو waxa jiro niman la yiraahdo baraha jiro shaasha jirto marka dhamaan dadkaasi waxbay tabanayaan iyagu dadka kale gooladan kale ee Soomaaliya iyo gooladan kale ee waqooyiga iyo galbeedka marka la suugo calay maxaa soo jeedinaysaa anigu waxaan soo jeedinayaa saddex arrimood inaan laga fursanaynin waa koow inaan helo af lagu shaqeeyo oo Soomaalidu idin ay ku shaqeyso wax lagu barto wax lagu qoro xafiisada looga shaqeeyo oo isku raacsan yahay qoraalkiisa laga maarmaan weey arrinta labaad waxa weeye inaan ogaano af Soomaaligan aan ku hadlayno kaliya ma aha af Soomaaliga Soomaaliga ka weeya Soomaaliga ka ballaaran yahay afka hadda aan ku hadlayno af kale oo muxuu afaf kale hadda ku aan sheegay sida in yani afafkaas lahjadaas kale kan hadda waa lahjad qudiis laakiin lahjadaas kale waa in maartay yani af Soomaaliga oo ka weyn iyaga inay muxuu ahayd waxa weeyaan ku darsamaan tan saddexaad waxa weeye afka hadda aan ku hadlayno yani waxa maartay si fudud baa يعني maartay raba in loogu dhaqmo afka waxa weey nin kasta oo cilmiyeyn kara inuu ku dadaalo afka inuu cilmiyeeyo oo yani in la qaaibo af Soomaaliga in la qaaibo in fardadka midaysan la qaaibo oo aan ahayn yani maartay in ninka yiraahdo maartay waxaan yiri inuu yiraahdo maartay waxa wada iyo usan maartay fiqallo ku sameeyay isku raacsan hal shay aan ogaano in af Soomaaliga ka weeyahay diyaartada labadeer maanta aan ku hadlayno ka weeyahay taas inaan madax ku hayno oo marka tixgelino lahjadaas oo hodantooyada afka Soomaaliyeed ee ku jirta aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Shariif Saalax Maxamed Cali oo igu warramay hotel Kambisi caasimadda dalka Djibouti 17 bishii 12 2012